waxaa maanta gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah 3 nin oo gabar 16 sano jir ah ku kufsaday ama kufsi ugu geystay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ninkan la soo qabtay ayaa looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay falka kufsiga halka kuwa kalena lagu daba jiro. Gabadha la kufsaday ayaa waxa ay dhiganaysay fasalka 7aad ee dugsiga hoose waxaana sida la sheegay dhibaatadaasi loo geystay xilli ay soo iibsanaysay dareyska iskuulka. haddaba faahfaahin dheeraad ah waxaan weydiiyay Cabdi Cadow oo adeer u ah gabadha la kufsaday waxaana marka hore weydiiyay sida ay wax u dhaceen. gabadhan waa gabar iskuul ku jirto oo galaas 7 ayadoo cid ka soo tagtay oo uniform magaalada soo doontay oo markay noqonaysay oo Wajeer ka tagtay oo meel bangal la dhaa u socota dhaxda loo istaagay 3 nin dhaxdii istaagay ayada sidii noo sheegtay ayna dhahday 3 nin gaari ay ku riteen xoog ku qabteen xaaladda oo dhibka gabadha ku dhacay saas ugu dhacay. imise sano ay jirtaa gabadha? gabadha 16 sano jirtaa. xagee dhibaatada loogu geystay markaa? Wajeer iyo bangal dhaxdooda meel bangal la dhaho oo magaalada ka baxsan oo cid ay degan tahay reerka gabadha waa la kufsaday 3 nin maartay gabadha kufsatay anshaxa Soomaalida ku jirin oo 3doodaba ay isticmaaleen macnaha loo geystay dhib fara badan jirkeeda ku dhacay oo dhiig fara badan aska baxay dhibkaas ku dhacay gabadha. kufsiga aad sheegtay in loo geystay gabadha ka sokow ma jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray? dhaawacyo kale wax oo gacan ma ogi hadda wax bir oo ku dhacay malaha laakiin gacan waa jirta ama dharbaaxdi ama feer ama haranti waa jirta sidii noo sheegtay gabadha. marka gacanta ma lagu soo dhigay ragga geystay falka foosh xun? hadda waxaa la soo qabtay si dibkan u dhacay hal nin oo ragga falka lagu tuunsiyay oo asaga iyo gaarigay falka lagu geystay inay lagu tuunsiyay hadda soo gacan galay saaki waqti 3 saac. 3 nin ee gabadha kufsaday maxay ahaayeen? niman dhalinyaro si ayada noo sheegtay anigii ilaahay baa wax og anaga ma arkin laakiin ayadan wareysanayna sidii noo sheegtay waa rag dhalinyaro waay. xagee hadda gabadhu joogtaa? xaaladeeda see waa sidee? hadda isbitaalka ku jirtaa alxamdulillaah marka hore qofta xariir oo la qaada oo la dhiga ahayd laakiin alxamdulillaah hadda waa la daaway marka xogo hadda xaaladeeda waa soo reysanaysa maskaxda ilaa iyo hadda wali caadi ma aha markay saaxato markay soo kacaysa waa wali waa isku naxaysa intay jiifto wali waa isku naxaysa. arintan ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay? ilaa iyo hadda anagii dadkii gabarta dhalay iyo dad wax askar ku saabsan wax hadda gurmid oo barga maanta noo imaaday waxaan ka sheegi karnaa oo ilaa hadda waqti gabadha maalintii gabadha dibka dhacay iyo maanta dhaxdooda noo imaaday waxaan ka sheegi karnaa qoladan oo xaqooda u doodan bas nasiib darrada jirtaa waxay tahay Kowsarey Wajeer County waxaa laga soo doortay MPL waxaa laga soo doortay xildhibaan hoose waxaa laga soo doortay gaafana waxaa laga soo doortay senator waxaa laga soo doortay woman rep ilaa hadda ma hayna hal qof oo na soo wacay ama hal qof oo isbitaalka noogu imaaday ama hal qof oo booliiska noogu imaaday ma hayno. inta badan markay waxyaabo noocan oo kale ay dhacaan qaarkood si hoos loo xaliyaa oo maslaxa lagu dhameeyaa marka taa diyaar ma u tihiin? maya diyaar uma yihiin maraan diyaar u noqonaynina ma lahan laakiin cadaalad waa inaan helno. maxaad codsanaysaan ka ehelka gabadha ahaan? waxaan codsanayaa inay arrintan wax nagala qabto oo dadweynaha horta waxaan ka codsanayaa marka ugu horeysa dadweynaha Wajeer ninkii gabadhan saan yeelay dadka gabadhan saan yeelay waa dad gabadhooda bari yeeli doono oo ayagana tolemada dadka dhan maartay gabartiisa ay ku dhici doonto way hadii maanta laga hortagi dadweynaha waxaan ka codsanayaa nin kasta oo arrintan falkeeda meel ku tuusan is wax nala qabta. mid kale nimanka ku soo siyaasiinta oo markale dadweynaha waxa uu qabanayna ku kaambeen garay waxaan ka codsanaa inay wax nala qabtaan oo ay dadkay gaasahan meeshaan joognay Wajeer STMB marka waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan si gabadha cadaalad ku heli lahayd. Cabdi Cadow oo adeer u ah gabar 3 nin ay ku kufsadeen magaalada Wajeer ayuu ahaa oo ii waramay. waxaa maanta gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah 3 nin oo gabar 16 sano jir ah ku kufsaday ama kufsi ugu geystay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. ninkan la soo qabtay ayaa looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay falka kufsiga halka kuwa kalena lagu daba jiro. gabadha la kufsaday ayaa waxa ay dhiganaysay fasalka 7aad ee dugsiga hoose waxaana sida la sheegay dhibaatadaasi loo geystay xilli ay soo iibsanaysay dareyska iskuulka. haddaba faahfaahin dheeraad ah waxaan weydiiyay Cabdi Cadow oo adeer u ah gabadha la kufsaday waxaana marka hore weydiiyay sida ay wax u dhaceen. gabadhan waa gabar iskuul ku jirto oo galaas 7 ayadoo cid ka soo tagtay oo uniform magaalada soo doontay oo markay noqonaysay
oo wajeer ka tagtay oo meel bangal la dhaa u socota dhexda loo istaagay 3 nin dhexdii istaagay ayada sidii noo sheegtay ayna dhahday 3 nin gaari ay ku riteen xoog ku qabteen xaaladda oo dhibka gabadha ku dhacay saas ugu dhacay. imise sano ay jirtaa gabadha? gabadha 16 sano jirtaa. xagee dhibaatada loogu geystay markaa? wajeer iyo bangal dhexdooda meel bangal la dhaho oo magaalada ka baxsan oo cidda ay degan tahay reerka gabadha waa la kufsaday 3 nin maartay gabadha kufsatay anshaxa Soomaalida ku jirin oo 3doodaba ay isticmaaleen macnaha loo geystay dhib fara badan jirkeeda ku dhacay oo dhiig fara badan aska baxay dhibkaas ku dhacay gabadha. kufsiga aad sheegtay in loo geystay gabadha ka sokow ma jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray? dhaawacyo kale wax oo gacan ma ogi hadda wax bir oo ku dhacay malaha laakiin gacan waa jirtaa ama dharbaaxdi ama feer ama haranti waa jirtaa sidii noo sheegtay gabadha. marka gacanta ma lagu soo dhigay ragga geystay falka foosha xun? hadda waxaa lasoo qabtay dibkan u dhacay hal nin oo lagu ragga falka lagu tuhunsiiyay oo asaga iyo gaarigay falka lagu geystay inayse lagu tuhunsiiyay hadda soo gacan galay saaki waqti 3 saac. 3 nin ee gabadha kufsaday maxay ahaayeen? niman dhalinyaro si ayada noo sheegtay dee anigii ilaahay baa wax og anaga ma arkin laakiin ayadan wareysanayna sidii noo sheegtay waa rag dhalinyaro waay. xagee hadda gabadhu joogtaa? xaaladeeda see waa sidee? hadda isbitaalka ku jirtaa alxamdulillaah. marka hore qabsa xariir oo la qaada oo la dhiga laakiin alxamdulillaah hadda waa la daaway marka xogo hadda xaaladeeda waa soo reysanaysa maskaxda ilaa iyo hadda weli caadi ma aha markay saaxato markay soo kacaysa waa weli waa isku naxaysaa intay jiifto weli waa isku naxaysaa. arrintan ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay? ilaa iyo hadda annagii dadkii gabarta dhalay iyo dad wax askar ku saabsan wax hadda gurmid oo barga maanta noo imaaday waxaan ka sheegi karnaa oo ilaa hadda waqtigii gabadha maalintii gabadha dibka dhacay iyo maanta dhexdooda noo imaaday waxaan ka sheegi karnaa qoladan oo xaquuqda u doodan base nasiib darrada jirtaa waxay tahay Kowsarey Wajeer County waxaa laga soo doortay MPL waxaa laga soo doortay xildhibaan hoose waxaa laga soo doortay gaafana waxaa laga soo doortay senator waxaa laga soo doortay woman rep ilaa hadda ma hayna hal qof oo na soo wacay ama hal qof oo isbitaalka noogu imaaday ama hal qof oo booliiska noogu imaaday ma hayno. inta badan markay waxyaabo noocan oo kale ay dhacaan qaarkood si hoose loo xaliyaa oo maslaxa lagu dhameeyaa marka taa diyaar ma u tihiin? maya diyaar uma yihiin maraan diyaar u noqonaynina ma lahan laakiin cadaalad waa inaan helno. maxaad codsanaysaan ka ehelka gabadha ahaan? waxaan codsanayaa inay arrintan wax nagala qabto oo dadweynaha horta waxaan ka codsanayaa marka ugu horeysa dadweynaha Wajeer ninkii gabadhan saan yeelay dadka gabadhan saan yeelay waa dad gabadhooda bari yeeli doona oo ayagana lamid dadka dhan maartay gabartiisa ay ku dhici doonto waay haddii maanta laga hortagi. dadweynaha waxaan ka codsanayaa nin kasta oo arrintan falkeeda meel ku tuhunsan is wax nala qabta. midda kale nimanka kusoo siyaasiyiinta oo mar kale dadweynaha waxa u qabanaynaa ku kaambeen gareey waxaan ka codsanaa inay wax nala qabtaan oo ay dadkay gaas ahaan meesha aan joognay Wajeer STMB marka waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan si gabadha cadaalad ku heli lahayd. cabdi cadow oo adeer u ah gabar 3 nin ay ku kufsadeen magaalada Wajeer ayuu ahaa oo ii waramayay.